السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا قاليقة دمانتي وإذن سلام ميلول بأدونك أكل جوكتانو وولاشينو مهاروني مركليتود بليز كنالكيغا داكاش سبسكرايب لايك كومنتي قدير جيل انتو واحقينا maantana waxaa inoo wadaa sida ciwaanka ku aragteen hooyo ilmaheedii inkirtay qisadana sidan ayay ku bilaabanaysaa gabar ayaa jirtay gabadha maasha Allah farxad ay ku nooleed familigeeda si farxad leh ku koriyeen dugsi sare dhameysay jaamacada waxay u aaday meeshii familigeeda deganaayeen maane meel kaleetodii jaamacadu aaday meeshaasi waxay ku baratay ninkii ay ku baratay maxay ahaayeen ay isjeclaadeen xoogaa jecel runana ma aheenin adig helitaan waxay kadib gabadhii uur yeelatay uurkii marka ayada ma ogeenin 4 bil markay marayso lee ogaatay inay uur leedahay markaasii dhakhtarka u tagtay waxay tiri ma rabo ilmiina dhalo ilmaha inaa soo dilaa rabaa markaas lagu dhahay naga raali noqo 4 bil cunug gaaray xataa wuxuu yahay lagu sheegaa la dhahay faanti lagama yaabo in la soo rido waa laga diiday sidii ay ku dhashay markay dhashay waxay tiri ma rabo inaa arko hal iga dheereeyo cunugan marka sidii uu iskaga daysay laakiin ninkii oo cunugeeda aabiis ahay saaxiibay yihiin way kulmaan markasto way is azuumaan cunugii hooyadiis wuu arkaa wuxuu arkaa naag aabiis saaxiib leh oo eedolo iskaga wacaa ma fahanti ayadoo sidii noloshii ay u socotay ee nin baratay ninkan marka sidii runta u jeclaatay ninkii is jeclaadeen way ka qarisay markii ilmo soo dhashay laakiin waxay bartay ninkan oo ilme wiilkeeda aabiis waxay bartay ninkii ay jeclaatay waxay ku bartay laakiin dad asxaab inay yihiin oo shaqo meel ka wada shaqeeyaan wiilkii runa u maleynayay sida isku guursadeen 7 sano ee farxad ku nooleed hooyadii xataa oo ninkeeda dhashay waxay ka soo qaaday gabar ee ayada dhashay amal farxaday markii ay siiyeen ayadoo sidii 7 sano farxadii lagu jiro maalmaha kamid wiilkii mooto watay waa ninkeedii mooto watay mootadii accident ku galay koomo galay marka koomada markuu galay waxay istiri sooma laabanayo oo dhimanahay way calool xumo xoogaa runta u sheeg ileen dadka koomada gala marka qaar wax way maqlaan sida aniga maalinsan igu horeysay naftirkeyga ilaa wuu maqlaay qofkii u imaado dhan oo wax u sheeg dhan ninkan jaa wax walba wuu maqlaay xasuusta kama tagin waxay ku tiri aniga cunugan dhale cunugeyga aabiisne hebel waayay ani ilmo marab inaan dhalo saas ay ugu dhacday qisadii dhan ay ugu sheekaysay ninkii markoo bil kadib koomadii ka soo baxay oo maxkamad soo saaray oo wuxuu yiri way qayaantay inaan kala tagnaa rabaa maxkamadii way dhaheen way aqbaleen way maxkamadii way labadoodii way meeshii isku fureen markaas maxkamadii waxa la soo saaray ninkii oo iskaga dhigay saaxiibkeed isla shaqeeyaan ninkii la keenay ninkii waxa la yiri maxaa raali ugu noqotay gabadhaaniti inay maxay haayeen ilmihiin inay kugu inkirto oo haddana sii daw socotay oo saaxiib iskaga dhigtid oo cunugiina been u sheegtid wiilkii yaraan sidoo kale oo ka qalbi xumaaday maadaama oo hooyadiisi dhashay oo u fahansanay naag aabiis saaxiib leh wuu ka xumaaday maantana 22 sano jira waa nin weyn maadaama hadda ogaadeen ma rabo yiri hooyanimadeeda ma rabo sidii uu ku inkir adin maxay kula tahay qisadan fikradaada hooyo ilmaheeda inkirayso oo diidayso oo maxay ahaayeen nin dartiisa xataa been u sheegayso aniga qiso waxay ila noqotay maskaxda qaadan weysay maadaama oo hooyo ahay aan dareemi karo waxa ay dareemayso hooyada ayadana ilaa hadda wixii taagantaa ma warabin ilmaaniga ilma dhan marabi haddana marabo awalna marabin marka qisada sidaas ku dhamaatay hadda ka heshay laagta commentiga dhiirigelinta waa xaqiina wixii fikirkaaga ahna hoos ku soo qor insha Allah hadii qisada wax ka qaldan yihiin ii sheeg oo waxaana ka qaldan ilaahay ma aniga hadda ku cusbay YouTube-ka qof ku cusub ahay hal igu soo dhaweeyo subscribe ki laagta commentiga. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.